waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoono walaalahan dawladda Turkida macaawinada ay noo soo dirtay saakay ay soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport sidoo sheegay wasiirka waxa waaye waa qaybtii ugu horeysay macaawino badan oo iska daba imaan doonta hadii alla idmo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo safiirka oo mathalaya dawladdiisa Turkida walaalaha aan nahay mar walbana garab taagan markii uu dib dhaco iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay gargaar degdeg dadka ugu horeeyo na soo gaaray inay yihiin waqtiga ugu fiicnaa macaawidana soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahanahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo rido COVID-19 looga hortagi karo qofka lagu kaalmeyn karo saad la socotaan cudurkan daawo ma leh laakiin taxaddar iyo qofka in la kaalmeeyo kaliya ayaa lagu caawini karaa waxa kale oo la socdo qalabkii lagu labisanayo looga hortagay in cudurka uu faafo sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontline-ka ah laabka ka shaqeeyo isbitaalada kala duwan iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan oo ay ka mid tahay afxirashada maaskiska wax alaala wixii ma aragto qalab oo lagu labisanayo iyo qalabka laabka loogu talagalay shaybaarka loogu talagalay naga kaalmeynayo inaan dad badan aan baarno baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka oo qofka markii la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen runtii baahi weyn ay u jirtay waxaan la qabaa wasiir Cawad iyo wasiir Xamza mahad celinta iyo ka gudoonka sharafta leh ee saaka aan meeshan u fadhino waa mahadsantahay ambassador waxaanu u nimid inaanu la wareegno oo wasiiradeena sharafta leh Fawziya halkan kula wareegtay kaalmo iyo deeqsinimo ah